Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan ka bilaabanaa section 3. Xalayna waxaan ku qaadan doonaa objectiveska meesha nooga muuqdo. Waxaan ka bilaabanaa ciwaankan working with rows and columns. Xalayna although the number of rows and columns in a worksheet is fixed, marka inkastoo numberska iyo rowska columnska iyo rowska ku jiro worksheetkaaga ay yihiin kuwa xadidan, you can still insert waxaa soo gelin kartaa row or column your row and columns if you need to make room for additional data. Marka xog dheeraad haddaad rabtid inaad kusoo dartid waxaa samayn kartaa row iyo column dheeraad inaad kusoo dartid, or ama delete row and columns inaad tuurtid ayaa samayn kartaa row iyo columnska markaas if the data they contain is no longer needed. Marka xogta markaas ku jirto haddii aadan usii baahnayn oo kale. This operation to not change the total number of rows and columns. Marka waxba kama bedeli doonto rows iyo columns ka hore meesha ugu jiray in a worksheet. You can also resize or hide row iyo column to meet your needs. Waxaa ku samayn kartaa resize ama hide oo waa qarin kartaa si aad u heshid baahida. Waxaa leenahay marka the sales group on the home tab of the ribbon contains waxaa ku jiro commands amrada that can be used loo isticmaalo easily insert si fudud si loogu soo geliyo delete loo sameeyo ama format rows si loogu sameeyo iyo columnska rowska iyo columnska. Waxaa leenahay marka insert row iyo column marka lasoo gelinayo you can insert row iyo column into a worksheet to add empty space si aad ugu soo dirtay ama additional data sa ugu soo dartid oo kale xog kale oo dheeraad ah. Rows are inserted above the selected row. Rowga markaas ku dooran ayaa ka soo gelin kartaa qaybtiisa sare. Columnskana waxaa leenahay are inserted waxaa laga soo geliyaa to the left dhanka bidixda of the selected column ee columnka ku dooran markaa. To insert a row waxaa leenahay row haddaad rabtid inaad soo geliso select waxaad doorataa rowga above which you want midka kore midka aad rabtid inaad kusoo dartid new row aad rabtid. waxaa leenahay marka home tab tagaysa sales group kadibna waxaa leenahay click the insert row and then click waxaa leenahay insert sheet row ka dooro. waxaa leenahay marka haddaad rabtid to insert a column haddaad rabtid inaad soo gelisi select waxaad doorataa columnka to the left of which bidixda midka aad rabtid inaad kusoo dartid to insert a new column si aad ugu soo dartid. waxaa leenahay marka home tab tagaysa waxaa leenahay kadibna sales group waxaa leenahay insert row and then click waxaa leenahay insert sheet column. haddaad rabtid marka inaad tuurtid waxaa samayn kartaa you can delete row columns from a worksheet to close up empty space si aad isaga xirtid kuwa aan u baahnayn oo kale, or remove unwanted data aadan u baahnayn oo kale haddaad rabtid inaad tuurtid aad u isticmaali kartaa. Before deleting a row or column intaadan tuurin row iyo columnka you should make sure that it does not contain any data you want to keep. Marka intaadan tuurin waxaa iska hubisaa xogta markaas aad tuuraysid in aadan u baahnayn. To delete a row haddaad rabtid inaad samaysid row inaad tuurto haddaad rabtid waxaa leenahay select row aad rabtid inaad tuurto home tab sales group kale waxaa leenahay delete row kadib waxaa leenahay delete sheet row. haddaad rabtid marka waxaa leenahay delete a column select waxaad doortaa columnka aad rabtid inaad tuurtid home tab tagaysa sales group kadib waxaa leenahay delete row kadib waxaa leenahay click delete sheet column ka dooro. Changing row heights rowga heightka uu leeyahay ama dhererka haddaad rabtid inaad ka bedesho maxaa leenahay Excel automatically adjust a row height to accommodate the tallest enter in the row. Marka Excelkaas automatic wuxuu ku siinayaa cabir uu row height ku siinayaa si meesha space la eg datada xogta aad soo gelinaysa ay u noqoto. You can sidoo kale waxaa samayn kartaa however manually increase or decrease row or heights as needed. Marka si caadi ah waxaa usoo samayn kartaa row iyo height aa u baahan tahay inaad kusoo kordhisid ama ka dhintid. The default row height is 15 points cabirkiisa waaye heightka midka defaultiga ah. You can specify a row height mid caadi ah gashan kartaa oo inta laga bilaabo 0 ilaa 409 points intaasoo cabir u dhaxayn kartaa.
you set a row height to a 0. Row height kaaga hadaa ka dhigto 0 points hadaa ka dhigto, the row is hidden. rowgaaga markaas wuu qarsoomi doonaa, waa arkeynaa. waxaa leenahay to change hadaa rabtid row inaa wax ka bedesho heightka, select waxaa doortaa rowga aa rabtid inaa resize ku sameysid. home tab waa tagaysaa, sales group ka dooro, kadib waxaa leenahay format button, and then click waxaa leenahay row height, figure-kana arkaysaa, or ama click waxaa leenahay row header and then row height on the shortcut menu. in the row height dialog box kusoo baxay tab waxaa qortaa value in the row height ka u baahan tahay boxka ku qor, and then click waxaa leenahay okay button. waa kana sawirka meesha noogu row height kana ku dhufo, kadib row height ka cabirka u baahan tahay gashanaysaa inta ina okay leedahay. waxaa leenahay column width, hadda marka waxaa soo bedelay row height soma. column width hadaa rabtid inaad bedesho maxaa samayn kartaa ayadana, the default worksheet column are wide enough to display about 8 characters. marka default worksheetka column-ka waa qeyb balac kaasoo ku filan in lasoo geliyo 8 character wax leeg. if your data is too long and does not fit in a cell, haddii xogtaada badan tahay eena la ekeen cellka, you can widen the column to display the entire content of the cell. xoogaa waa balaarin kartaa marka si aa ugu soo dartid content badan cellkaaga. you can also make waxaa samayn kartaa a column is narrow, waa ka dhigi kartaa to save a worksheet space. marka qayb la ayaa ka dhigi kartaa si aa u save garaysid space ka badan oo markaas kaa khasaari lahaa. the default column width uu leeyahay waxaa waaye 4.43 characters. you can specify column width, waxaa ku samayn kartaa cabirka in wax kaga bedeshay 0 markii laga bilaabo ilaa 255 character. sidoo kale if you set a column width, haddii column width kaaga ka dhigto 0 characters, the column is hidden, wuu qarsoomi doonaa sida hadaayo kale. marka si aa u sameysid column width waxa uga bedesho waxaa leenahay select column-ka aa rabtid inaa wax ka bedeshid, kadib waxaa leenahay home tab, sales group, kadib waxaa leenahay format button, and then click column width, or ama click waxaa sida the column header and then click column width on the shortcut menu. in the column width dialog box kusoo baxay tab waxaa qortaa value aa rabtid column width boxka, and then click waxaa leenahay okay button. sawirka noocan noogu muuqdo column width markaa soo dooratid, kadibna cabirka meeshaan waa gashanaysaa cabirka u baahanta. hiding and hiding row iyo column aan bilaabana cashirkan xil insha Allah. practical galeena insert row iyo column soo ku bilaabana. row iyo column hadaa rabtid inaad soo geliso waxaa leenahay home tab ima waa ku jirtaa soma, kadib waxaa leenahay sales group, kadib waxaa leenahay insert software, insert row iyo insert column waa ku xira. marka hadda waxaa taaganahay meeshaan tusaale qaybtan bilowga taaganahay, hadaa dhaho insert row wuxuu sameyn doonaa row kale inuu igu soo daro. rowga marka kor kusoo daray above kusoo daray soma. waxaa rabaa marka godka hadda aa taaganahay qaybtiisa hoose inaan kusoo daro, waxaa sameynaya godka kala tagaya, kadib waxaa leenahay insert row, kadib wuxuu sameyn doonaa qaybta kore inuu kusoo daro. okay waxaa rabaa marka haddana column inaan kusoo daro, waxaa leenahay tusaale meesha aa hadda taaganahay column inaan kusoo daro rabaa, waxaa leenahay insert, kadib waxaa leenahay insert column, wuxuu sameyn doonaa dhanka bidixda kusoo dari doonaa. hadaa rabo marka dhanka midigta inaan kusoo daro waxaa leenahay qaybtan geeska imaaw, kadib waxaa leenahay insert, kadib waxaa leenahay insert column, wuxuu sameyn doonaa qaybta inaan kaaga soo daro. ciwaana u sameynaysaa wixii aa rabta kusoo daraysaa, control z dheh, uma baahnin hadeertaan. waxaa leenahay delete row iyo column sida loo tuuraa. tusaale intaa taaganahay inaad tuuro row iyo column, waxaa leenahay saleska soo fur, weli saleska ku jirnaa inta soo fur, kadib waxaa leenahay delete row. delete row hadaa loo yaxye iyo rowgiisa dhammaan wuu bixi doonaa xogta ku jirta. delete row sameynaa yaxye wuu bixi sooma, control z dheh noo soo celi. haddana waxaa dhihi karaa delete column oo column marka wuxuu sameyn doonaa qaybtan names 2021 dhan way bixi doonaan. waxaa leenahay delete column soma, names 2021 dhan way bixin. column waa ilan joog waa moogtahay, control z dheh noo soo celi. qaabkaasaa u sameyn kartaa delete row iyo column. marka heightka inaan wax ka bedelo, sidee waxaa uga bedeli karaa row iyo heightka inaan wax ka bedelaa rabaa. tusaale godkaana taaganahay oo u horeeyo,
kadib waxaa leenahay formada soo galaya kadibna row height. hadda cabirka ii saaran waa 28. hadda ka badiyo oo dhaho 35 ka dhig waa height-ka ya dhirirka waa macnaha jooga kaliya asiyo wuxuu sameeyay xoogaa waxuu ku daray control z sidiisa caadiga kugu soo celinaya. sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad ku dhufato haddana leedahay column width inaad ka bedeshay ku dhufo kadib waxaa leenahay column width 4.67 ii saaran waxaa ka dhigi karaa 12 oo kale kadibna okay aad dhigi karaa. wuxuu sameeyay ayadana column width ka balaciisa oo balaariyay qaabkaas ayadana u samayn kartaa. cashirkeen intaan ku egyahay waxaan ka bilaabi doonaa ka waran marka haddii lacala aad sameeyo formatka soo fur kadibna row height-ka aad ka dhigo 0 maxaa dhacayo xogtii meesha ku jirta dhan way yani waxay noqotaa hidden ay noqoto way qarsoonto sooma ila 0 ka dhigna control z na soo celi. haddii haddana aad ka dhigo column-ka hadii rowga ahaa column-ka hadaa ka dhigo 0 ayadana wuxuu noqonayaa sidii sillimada noqonaya sooma wuu qarsoomay column-kan. control z na soo celi qaabkaas marka waxaad samayn kartaa in hidden aad ku samaysid control z aadana wuu kusoo laaban doonaa. marka cashirkan intaan ku egyahay waxaan ka bilaabi doonaa cashirkan xiga insha Allah.